السلام عليكم أصحابتي سو دواada maanta waxaa martino adeerkay Ibraahim waa kana adeerkayda Ibraahim Al Xuseen maanta muxuu nooga qayb qaadanayaa barnaamijka su'aalaha السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta waxaa farxad ii ah inaan soo booqdo carruurtan adeer ku ahay maadaama ay jiraan dad maanta carruurtooda ay ku mashquulsan tahay kubadaha filimada banooniga bannaanka loo aado. maanta waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo su'aalaha diinta maadaama carruurta ay tahay muhiim in lagu barbaariyo diinta. su'aalaha aan weydiin doono waxaa ila jooga Xamse Maxamed iyo Maxamed Maxamuud oo saaxiibkiis ah. marka labadaas ayaan rabaa inay igala qayb qaataan su'aalaha aan weydiin doono jawaabahooda. marka waxaan ku hormarayaa hadduu ilaah yidhaahdo Maxamed oo waxaan leeyahay su-aasha koowaad aan weydiinayo Maxamed waxay tahay Maxamed adeer waxaad noo sheegtaa ujeedada adduunkan aan u joogno oo naloo abuuray annaga. bismillahi raxmaani raxiim. adeerka su-aasha weydiiyo ku mahadsan yahay. ilaahay wuxuu noo abuuray in asaga keligiis caabudno. maasha allah, su-aashii aan weydiiyey Maxamed wuu noogu jawaabay. haddana waxaan aadayaa Xamse adeer waxaad noo sheegtaa islaamka 5 tiir ayuu leeyahay. arkaanul islaam ayaan rabaa inaan ku weydiiyo. marka hore nooga jawaab, waxaadna noogu xijisaa tirada inaad noo tirisid. fadal. بسم الله أركان الإسلام وشن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما شاء الله حمزة wuu dadaalay. su-aashii aan weydiiyey wuu ku jawaabay. haddana su-aalaha ayaan sii wadayaa. waxaan leeyahay ummad kasta su-aashaan waxaan siinayaa Maxamed. ummad kasta ilaahay wuxuu u soo diray nebi. annaga nebigeena calayhi salaatu wasalaam waxaan rabaa inaad noo sheegto magaciisa iyo inta carruura uu dhalay. bismillah. nabigana la soo diray magaciisa waxaa weeye Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam. carruurtiisana waxay ahayn 4 gabdhood iyo 3 wiil. maasha allah, maxamed waa dadaashay. su-aasha ku xigta waxaan siinayaa oo isla su-aashaas aanan ka dheereen Xamse ayaan siinayaa. marka Xamse adeer waxaan kaa rabaa inaad ii sheegto 4 gabdhood Maxamed noo sheegay iyo 3 wiil magacyadooda. 4 gabdhood uu Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam u dhalay maxaa waaye Ruqiya, Kulthum, Faatuma, Zaynab. 3 wiil oo dhalana maxaa waaye Qaasim, Ibraahim, Cabdullaahi. maasha allah, Xamse aad buu u mahadsan yahay siduu noogu caddeeyey 4 gabdhood iyo 3 wiil magacyadooda. allah soo hanuuniyo ilmo badan iyo reero badan maanta ma yaqaanaan carruurta Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam. maasha allah baan leeyahay. hadduu ilaah yidhaahdo asbuuciiba dhowr maalin ayaan idin imaan doonaa. su-aalaha diimaha ayaan idinkala qayb qaadan doonaa. marka waxaa idin leeyahay waad mahadsantihiin. soo dhowaada. adinka ayaan aad u mudan jawaabihii aad ila qaadateen su-aalahaygii. waad mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. أصحابي هذا فيديو كيشن لايك سبسكرايب شير نصارى.